maamulka gobolka Togdheer oo kulan la yeeshay xafiiskooda ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo samata bixin lahaa dadkii abaarta ku soo waxyeeloobay xuska munaasabadda ay dhimay sanadkan ayaa waxa loo bedelay meedan andaryala dadkeena ugu horeynba munaasabadan waxa uu la kooban ka soo jeediyay Cabdinaasir Faarax oo ka hadlayay afka ardayda oo ka qayb qaadatay inay dhalinyaradan mutadawiciinta ay maanta halkan isugu yimaadaan isla markaana ay bilaabaan barnaamijkii aadka u qiimaha badnaa ee aynu baryahanba ka shaqeynay lagu magac daray dabaaldega meedan aynu daryeel dadkeena barnaamijkan insha Allah taala wuxuu noo socon doonaa 18 May iyo 19 inagu ka dhalinyar ahaan waxaanu kaga qayb qaadanaynaa inaan labada cisho aynu door to door albaab ku garaacno sameynana dhaqaale ururin Suduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac Warsame ayaa dhalinyarada kula dardaarmay isla markaasna ku dhiirigeliyay inay si weyn uga qayb qaataan qaadan ururinta lagu daryeelayo dadka tabaalaysan ee xooluhu ka dhamaadeen baalaheedii iyo ururintii kale dalada ku bahoobay dhamaantood waan u mahad celinaya midkan si aan idin kula dardaarmayo wax weeye dhalinyaro gobolkan Togdheer iyo magaaladan Burco gaar ahaan had iyo jeer iyada dalka u horseeda haday noqoto halgan haday noqoto wixii kale ee qayb qaadataan oo aad uga mid dhalisaan arintaas maanta aynu u guntanayno dadkeena abaare wax ku Barsaabka xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha gudida taakulaynta abaaraha ayaa ka xog waramay xaaladda dadkii abaar ku soo waxyeeloobay isla markaasna dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay si weyn uga qayb qaataan qaadan ururinta loo sameeyo aynu mataqaana dadkeena xusno nin dadkiisa gaajoonay miyuu durbaan tutaa durbaanka waxaynu tumaynaa dadkeena si aynu daryeeli lahayn waxa la doonayaa intaas oo boqol oo qoys oo Soomaaliland in la xooleeyo baa la doonayaa waxa markaa la idin soo qaatin albaab walba garaacdan door to door أو تناقف ولا واحد كوري سال كوريت أو أوش قيسان أو هالك كتاريخ شبهدي إنه كو قريت يرجع دنتي لا يدكو قريت هالك مرسيت كلامه ugu dambeyntii barasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Rabax oo ka dhawaajay in dawlad iyo shacabba sanadkan si isku mid ah uga qayb qaadanayaan qaadan ururinta loo sameeyo dadka tabaalaysan ee xooluhu ka dhamaadeen isla markaasna dhalinyarta gobolka Togdheer ku dhiirigeliyay inay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaataan munaasabadani ee ka kooban 157 ee u xil saaran maanta in ay garaacaan guriguri hawshan waxa ka qayb qaadanaya kaligiin maaha maamulka gobolka ka degmada heelaamaha dawladda ciidamada inaga rabaa hadda waxaynu ku jirnaa diyaar garowgeedii 157 naas koox walba waxa raaci doona baabuur mikrofon saaran yahay waxa raaci doona xildhibaano waxa raaci doona tira ciidamada ka tirsan idinku hawsha fulinaysaan way qaybsan tahay 18 Maydan dabaaldegi kameynaan tagin maaha maalin la ilaawi karo maalin hoos loo dhigi karo maaha waa maalintii dalkani uu la soo noqday xurriyadiisii isku soo wada duubo dabaaldegi munaasabadda ay dhimay sanadkan ayaa waxa ku dhig looga dhigay meedan andaryala dadkeena iyada maamulka gobolka Togdheer iyo dhamaanba shacabweynaha gobolka Togdheer iyo dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha ay ka qayb qaadanayaan qaadan ururinta loo sameeyo dadkii ku waxyeeloobay xaaladda abaarada darneed ee ka soo dhacday gabi ahaanba deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyadoo guud ahaanba munaasabadda sanadkan dalka ka dhici doonta ee lagu dabaaldegayo munaasabadda ay dhimay ay noqotay munaasabad lagu samata bixinayo kumanaan kun oo shacab oo wax ku yeeloobay abaartii baanad ee ka dhacday deegaanadani waa Xasan Salebaan ayaa la BM TV-ga caalamiga Somali News TV Pro